Maanta oo kale, 2 Ramadaan 114 Hijriga oo ku aadanayd Oktoobar 732 miilaadiga, waxaa dhacay dagaalkii lagu magac daray Macrakatu Balaat Shuhadaa Battle of Tours, 16 sano kadib furitaankii Andalus. Ereyga Balaat waxaa lagu micneeyaa qasriga ama meesha ay ku hareeraysan yihiin doogga qurxoon. Haddaba, ereyga Balaatu Shuhadaa wuxuu la micno yahay qasriga shuhadada. Magacan waxaa loogu bixiyay tirada shuhadada dagaalkaas oo aad u badnayd. Dagaalkan wuxuu ka dhacay magaalo lagu magacaabo Tours oo maanta ku taalla bartamaha galbeedka Faransa. Tirada muslimiinta waxaa lagu sheegay inay ahayd 50,000, uu hogaaminayay taabiciga Cabduraxmaan al-Ghafaaqi. Dhacdooyinka dagaalkan wuxuu u ekaa dagaalkii Uxud ee dhacay sanadii 3aad ee Hijriga. Bilowgii hore, muslimiinta way guuleysteen, waxayna ku kadsoomeen tiradooda iyo agabkooda oo fiicnaa. Sidoo kale, waxay ku kadsoomeen adduunyada, dabadeedna waxay guda galeen inay soo gurbiyaan khanaa'imta, taas oo jaanis ahaan uga faa'iidaysteen Burgundiyiintii iyo Faranjiyiintii ay markaas dagaalka kula jireen. Ugu dambeynna, muslimiinta ayaa lagu jebiyay dhacdadaas. Waa isla dhacdadii dagaalkii Uxud markuu Nebiga sallallahu calayhi wasallam ku dhahay Cabdullaahi ibnu Jubayr iyo 50 nin oo asxaabta ahayd inaysan kasoo degin Jabal Rumaat hadday muslimiinta guuleystaan iyo haddii kaleba. Laakiin markay arkeen in muslimiinta ay adkaadeen, way soo degeen si ay khanaa'imta wax uga qaataan, halka mushrikiinta ay mar labaad ka soo galeen isla meeshii uu dhahay Nebiga ha ka soo tagina. Xiriirka ka dhexeeya labada dagaal wuxuu ahaa adduunyo jacayl. Labadii ciidanba waxay u soo degdegeen inay qaataan khanaa'imta. Jacaylka adduunyada Ilaahay wuu nooga digay markuu dhahay walaqad sadaqakum Allahu wacdahu id tuxissuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun minkum man yuriidu addunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. sidoo kale, Ilaahay wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa falaa tagurrannakum alxayaatu addunyaa walaa yagurrannakum billaahi algharuur. Si aan uga guulaysano nafta, waxaa nagu waajib ah inaan adduunyada gacanta ku qabsano, qalbigeennana aanan dhexgelin marna.